السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرداد قيمة بدن أيام السلامية. إن شاء الله حنسك قد قلت هنا 10 كيني وحينو كسو جرني أما إنه صور دقني مالين تهر 10 كحيجي ميكرونيوترينتس كقيبة كمدة. ميكرونيوترينتس كحنو ساقي مينرال يفيتامينز فيتامين كقيبتي هراء فات soluble فيتامين كوان soo dhiganay fitamiinada ama qaybta ku milmalka biyaha inaga oo marka ka soo sheekeynay inuu fitamiinku waa nafaqo laga maarmaan u ah marka qof kasta jirkana uusan samaysan intiisa badan lagana helo ama qofka inuu ka helo ay tahay cunooyinka aynu cunayno iyo cabitaanada waxayna fitamiinada badankood muhiim ay u yihiin shaqo kasta oo jirka markaa ka dhacdo hase ku kala duwanaadaan mid kasta shaqo gooni ee jirka uu qabta markaa marka qaybteennii aan ku socono markaa maanta aynu ugu talagalay inaan dhigano water soluble vitamins waa fitamiinada markaa ku milma biyaha ayaynu maanta eegaynaa fitamiinadan biyaha ku milmo waxaan soo sheegnay inay yihiin fitamiino aan lahayn toxicity haddii qofka in badan uu ka qaato marka jirka wax sun ah kuma keenayaan oo waxa laga saaraa marka kaliyaha ayaa laga saaraa wixii dheeraad ah waana inta badan keyd jirka badana inta 90% keyd marka jirka kuma laha oo muddo marka 2 cisho ama maalin gudahood ah ayaa marka keydkooda ma gaaro marka waxaa muhiim ah inaan ka helno cunooyinka aan cunayna iyo biyaha qaas ahaan inta badan qudrada cagaaran ayay fitamiinada marka ayaa laga helaa fitamiinada waxaan kala ka sheeganaa marka inuu qofka qudrada cagaaran oo ka helo oo muhiim u tahay badanaana fitamiinadan wax B complex ay la isku yiraahdaa oo inta badan way wada jiraan marka laga reebo marka vitamin B6 iyo vitamin B9 iyo B12 water soluble vitamins kan waxaa laga helaa marka afaan waxaa laga helaa ingest marka funguska marka nooc kamid ah waxaa kale oo laga helaa marka grainska marka hadhuurka ama badarka waxaan naqaano waxaa laga helaa marka bariiska waxaa laga helaa marka vegetables-ka qudrada waxaa laga helaa marka kalluunka waxaa laga helaa marka caanaha qaybo badan cunooyinkeena kamid ah they are essential waxay muhiim ay u yihiin fitamiinadan oo laga maarmaan ay u yihiin oo caawiyaan as a coenzyme ayay u jiraan marka waxay u jiraan as coenzyme oo marka waxay muhiim u yihiin in unugyada jirka ay tamar ka sameystaan cunada carbohydrate leh inay marka ay ka sameysan karaan iyo fatiska iyo marka iyo proteinkaba ayaa looga baahan yahay marka oo falgalada qaar jirka ka dhacayo ayay caawiyaan marka ka dhacay ayay caawiyaan fitamiinadan waxaa kamid ah waa 8 fitamiin oo marka vitamin B-ga iyo C-ga marka waa 9 fitamiin fitamiinadan waxaa kamid ah vitamin P1 vitamin B1 ayaa kamid ah chemical name-kiisa waxaa loo yaqaanaa thiamine ayaa loo yaqaanaa waxaa kamid ah vitamin B2 oo loo yaqaano riboflavin waxaa kamid ah vitamin B3 chemical name-kiisa loo yaqaano niacin waxaa kamid ah vitamin B5 ee loo yaqaano bentotonic acid waxaa kamid ah vitamin P6 chemical name-kiisa loo yaqaano pyridoxine waxaa kamid ah vitamin P7 oo loo yaqaano biotin waxaa kamid ah vitamin P9 oo loo yaqaano chemical name-kiisa folic acid waxaa kamid ah vitamin P12 oo loo yaqaano chemical name-kiisa cobalamin waxaa kaloo water soluble vitamins ka vitamin C kaasoo loo yaqaan ascorbic acid marka 9 vitamin ayaa la isku yiraahdaa water soluble vitamins fitamiinada ku milma marka biyaha marka wax toxicity ama sun ay leeyihiin ma jirto ayna soo qaadano fitamiinka koowaad ayna markaa soo qaadan fitamiinkan koowaad waxaa loo yaqaanaa vitamin B1 oo chemical name-kiisana waxaa la yiraahdaa marka waxaa loo yaqaanaa thiamine it also called waxaa kaloo loogu yeeraa
antiperiperic factor يعني xanuunka deficiency-ga la-aantii xanuunka dhaco ayaa loogu magac daray markaa waa fitamiinkii lidka ku ama ka hortagay beriberi factor markaa xanuunka ama antinuretic factor ayaa loo yaqaan wuxuu ka tagaa uu ka hortagaa markaa dhaawac soo gaaro neerfayaasha ama aneurin ayaa loo yaqaan neerfihii inuu shaqada joojiyo okay all living thing organism use thiamine dhammaan noolaha oo dhan waxay isticmaalaan thiamine laakiinse waxaa laakiin it is synthesized waxaa samaysta oo keliya only bacteria fungus iyo plantiska ayaa samaysta marka ayaa samaysta kuwaasoo keliya ayaa samaysta okay vitamin B1 wuxuu is very essential wuxuu aad muhiim u yahay for converting in loo bedesho marka carbohydrate into energy marka Krebs cycle-ka la joogo pyruvate in loo bedelo marka acetyl coenzyme A marka Krebs cycle-ka ayuu aad uga shaqeeyaa oo muhiim ah adi cunada carbohydrate in tamar lagala soo baxo ee unugyada ay kala soo baxaan jirka ayuu marka muhiim u yahay B1 wuxuu kaleeto oo muhiim u noogu yahay oon uga baahannahay required waxaan for growth marka koritaanka wuxuu inaga caawiyaa waa maxay koritaanka ayuu inaga caawiyaa and maintenance of nerve and muscle damage wuxuu joogteeyaa oo caawiyaa shaqooyinkooda neerfayaasha markaa iyo muscleska muruqyadaas ayuu marka nodayaashaas ayuu aad u caawiyaa oo muhiim u yahay it helps wuxuu kaloo naga caawiyaa the digestion marka dheefshiidka of food marka cunadii inay marka la dheefshiido oo la burburiyo ayuu inaga caawiyaa ayuu inaga it provides wuxuu kaloo na siiyaa vitamin B1 strength muscles wuxuu awood siiyaa muruqyada marka muruqyada ayuu siiyaa it is very useful wuxuu aad muhiim u yahay for the proper functioning of the heart inuu wadnaha si fiican marka wadnaha oo u shaqeeyo inuu wadnaha marka si fiican u shaqeeyo muruqa wadnaha inuu si fiican u shaqeeyo okay fitamiinkan haddaan si gooni ah aan u sii sheegno dhammaan waa u wada muhiim markaasi dadka laakiin qaasaan wuxuu muhiim u siiyay haweenka uurka leh ayuu faa'iido gooni ah u siilay xagga dietary source of vitamin B1 marka ilaha cunada ee laga helaa vitamin B1 ilaha cunada ee vitamin B1 laga helaa waxa laga helaa marka kalluunka waxaan ka helnaa kalluunka waxaanu ka helnaa marka kalluunka waxaan ka helnaa noocyo fara badan oo kamid ah marka gidirada marka ayada kala duwan ayaynu ka helnaa waxaan ka helnaa oo kaleeto lowska ayaynu ka helnaa waxaan ka helnaa oo kale qamadiga waxaan ka helnaa oo kale galleyda waxaan ka helnaa oo kale masagada waxaan ka helnaa oo kale fitamiinadan caanaha la qalajiyo oo kaleeto caana booraha oo kaleeto ayaa aad looga siiyaa waxaan ka helnaa hilibka waxaan ka helnaa marka ayada kalluunka meelahaas ayaynu ka helnaa qudrada cagaaran ayaa vitamin B1 ayaynu ka helnaa waa ilaha aan ka helnaa okay vitamin B1 deficiency haddii vitamin B1 uu jirka ku yaraado maxaa dhacaya deficiency of vitamin B1 haddii uu jirka ku yaraado waxaa dhaca xanuun loo yaqaan beriberi ama beriberi xanuun loo yaqaan ayaa dhaca ereygan marka beriberi waxaa weeye erey sinhalis ah waa erey ama waxaa loo yaqaan marka waa sinhalis meaningka macnihiisana marka waxaa lagala jeedaa beriberi waxaa weeye extreme weakness ayay marka iyada lagala jeedaa in qofkii si aad ah marka uu u noqdo marka awood li aad ah okay ereygan wuxuu ka soo jeedaa waa Sri Lanka qowmiyad loo yaqaano Sri Lanka marka ku nool oo qowmiyada ugu faraha badan ah ayaa sinhaliskan marka ayada kuwaas ayaa luqada ku hadla marka ereyga xaggaas ayuu inagaga yimid haddaba there is gradual degeneration of long nerves fast legs waxaa jira markaa qofkii wuxuu yaraa tartiib kusoo yaryaraa markaa kusoo baaba'aya awoodoodii soo luminayo neerfayaasha kuwii tegaya markaa iyada lugaha marka kadibna kuwa gamcihii kadib muruqyadii waxay noqonayaan inay yaryaraadaan atrophy inay muruqyadii markaa iyada inay muruqyadii ay yaraadaan kadibna reflexki meesha uu ka baxo okay
taas marka waa beriberi waan u tegi doonaa. Wernicke-Korsakoff syndrome in alcoholics, dadka khamriga cabo waxaa ku yaraado jirkiisa, waxaa ku yaraado oo hoos u dhigaa khamriga fitamiinka loo yaqaano thiamine, kadibna wuxuu keenaa maskaxda brain damage, qaas ahaan cerebellumka ay dhaawac ka soo gaara, kaasoo qofka uu luminayo markaa balansiga isku dheelitirnaanta jirka ayaa lumaysa. waxa kale qofka fitamiinka haddii ka yaraa lagu arko fatigue, qofka daal fara badan, weakness, qofka awood darri, nerve disorders, inuu qofkii uu dhaawacyo ay soo gaaraan markaa iyada xagga nerveska, mental confusion, qofka wuxuu yeelanayaa markaa iyada xaggii qofka damiirki ayaa wuxuu noqonayaa inuu isku dhex yaaco waxa kala garan waay, impaired growth, qofka xumaanaya markaa iyada koritaankiisa ayaa qofka waxa weeye hagaas soo galaya markaa. Swelling, qofka barar buu yeelanaya, heart irregularity and failure, wadnihii oo kaleeta ayaa rhythmka ama habdhicii ayaa qalqal soo galaya markaa, iyo weliba failure, inuu wadnihii u weynaado kadibna uu keeno howlgab xagga wadnaha ah oo taasoo ka timid fitamiinka oo yaraado noocan ah markaa fitamiinka aan u naqaano B1. Okay, haddii fitamiinka wuxuu caan ku yahay marka deficiency u weyn keen waa beriberi, marka results in disease xanuunkan waxaa ka dhasha kooleyr xanuunkan beriberi waa condition, waa xaalad markaa market oo calaamad u tahay 4 shay. Mental impairment, qofkii markaa garashadiisii oo xumaato, damirkii markaa iyada qofka garashadiisii xagga maskaxda oo xumaato, muscle wasting, murqeedii oo lumo, high blood pressure, dhiigkarka qofka dhiigga oo cadaadiska kor u kaco, heart problem iyo dhibaato wadnaha, marka syndrome-ka calaamadahan isu tagay ayaa beriberi loo yaqaana. haddaba beriberiga types of beriberi waxaa noocyo ayaa jira markaa iyada 3 nooc ayaa loo qeybay beriberiga: dry and wet iyo wax la infantile. dry beriberi ayaa loo yaqaana, had iyo jeer ka waxaa lagu gartaa sifiisa muscle wasting, murqeedii ayaa luma. wet beriberi ayaa isagana jiro oo waxa weeye isna lagu gartaa edema and cardiac failure, barar jirka ah iyo weliba wadnihii oo howlgaba. infantile beriberi ayaa jiro, kaasna waxaa goortii hooyada markaa the mothers, goorta hooyada vitamin B1 deficiency, hooyadii uur leh ayaa waxaa ku dhacay vitamin B1 deficient, thiamine deficient, kadibna ilmihii yaraa ayaa xaaladan isna soo wajahaysa. marka 3 nooc ayuu u jiraa. murqeeda uu inta badan uu saameynay waxaan soo sheekeynay waxaa murqeedan loo yaqaan marka calf muscleskan, kuwan ayuu saameeyaa, kuwan ayaa yaraado, nerveska halkan imanaya ayaa markaa iyada waxa weeye ayaa dhamaanaya oo baaba'aya, kadibna muruqan hadduu innervationkii uu waayo waxaa dhacaysa kadib inuu yaraado. nerviga haddii muscleka haddii innervationka uu waayo ama nutritionkii lagu talo uu yahay had iyo jeer wuxuu sameeyaa waxa maxay inuu atrophy uu yaraado, laakiin ma saameynaya kuwa soliska inta badan waxa weeye ma saameeyo. Okay, qofka daily requirements, qofka maalintii intuu u baahan yahay xagga ragga markaan sheegana vitamin B complexka loo yaqaan inta badan waxa u baahi badan u qaba xagga marka ragga waxa kale oo soo raac marka ama laga reebo hooyada nuujinayso iyo uurka marka laga reebo marka ciyaalka iyo dumarka iska caadiga ragga ayaa uga baahan maadaama inta badan ay shaqeynayaan tamar fara badan ay u baahan yihiin. marka sida awgeed ninka maalintii waxa looga baahan 1.3 mg inuu helo oo vitamin in marka uu helo vitamin B1. vitamin B1 sida aan soo sheegnay kaliya ma jira, waa complex vitaminada kaliya ay ku jiraan, marka si gaar ah uma jira. marka 1.3 mg ayuu u baahan yahay ragga. Okay, ayay u baahan yihiin. womanka dumarka waxay u baahan yihiin marka 1 mg ay u baahan maalintii. pregnancy and lactation, hooyada nuujinaysa ta uurka waxay u baahan 2 mg maalintii. childrenka carruurta 1.1 mg ayay u baahan. mar kale waxaan ku soo celinay vitaminada inta B complex la yiraahdo si wada jir ah ayaa loo qaata, vitamin kale ay ku dhex jiraan, marka B1 kaliya gooni marka uma jira. Okay, waxaan soo gelinaa vitaminka labaad, vitamin B2 oo loo yaqaan riboflavin. riboflavin ayaa vitaminkan ayaa loo yaqaanaa marka. Okay, it plays a very important role in assisting the various chemical activities which are essential to life. wuxuu ka ciyaaraa door muhiim ah. it plays wuxuu ka ciyaaraa a very important role, door aad muhiim ah oo wuxuu sameeyaa
in our system wuxuu ka caawiyaa various chemical activities fara badan oo jirka ka dhacaya kuwaasoo muhiim u ah nolosha muhiim ayay u yihiin markaa fitamiinada kaleeta ayuu fitamiinkan u caawiyaa wuxuuna muhiim u yahay korriinka jirka wuxuuna soo saaraa unugyada cascas ee dhiigga sidaa daraadeed dhiigga haddii uu yaraado dhiig yaraanshaha ayuu ka hortagaa fitamiinkan si ayn tamar oo lagala soo baxno cunooyinka aynu cunnana fitamiinkan aad ayuu naga caawiyaa okay digestion it helps markaa wuxuu kaloo naga caawiyaa dheefshiidka wuxuu kaloo markaa uu caawiyaa inay si fiican u shaqeeyaan nerve systemka it helps in proper function inay si fiican u shaqeeyaan wax loo yaqaano markaas ayuu naga caawiyaa nerve systemka wuxuu muhiim u yahay caafimaadka markaa mucous membranada markaa iyada good for skin wuxuu vitamin riboflavin vitaminka wuxuu muhiim u yahay maqaarka wuxuu kaloo muhiim u yahay nailska marka cidyaha aan iyaasinda vitaminka waxaa lagu naanaysaa the pute vitamin ayaa lagu naanaysaa markaa it helps wuxuu kaloo naga caawiyaa protect the body against cancer jirka wuxuu kaloo vitaminkan uu ka caawiyaa inuu ka hortago marka kansarada qaarkood ayuu ka hortagaa okay lix shaqo ayaa markaa iyada lagu soo koobaa ahmiyadda vitamin B2 uu jirka u leeyahay prevents migraineska xanuunka marka madax xanuunka loo yaqaan nooca migraine ayuu ka hortagaa wuxuu kaleeto uu caawiyaa eye health caafimaadka indhaha ayuu caawiyaa eye health caafimaadka indhaha naga wuxuu kaloo ka hortagaa sensation lagu daweeyo anemia dhiig la'aanta and helps to maintain energy levels wuxuu kaloo inaga caawiyaa oo joogtay in jirka uu tamar u kala soo baxo inuu jirka waa maxay uu tamar kala soo baxo cunnada u kala soo baxo wuxuu kaloo vitaminkan uu jirka caawiyaa antioxidants sunta inuu jirka ka saaro oo kansarkana uu ka hortago kansarkan waa maxay in uu ka hortago wuxuu kaloo ilaaliyaa hair and skin maqaarka iyo timaha lixdaas faa'iido ayaa lagu soo koobaa meelaha marka vitaminkan laga helo sourceska vitaminkan laga helo okay dietary source of vitamin B2 cunooyinka laga helo waxaa lagu sheegaa marka cunnada cagaaran ayaa laga helaa sida saladka waxaa laga helaa koostada ukunta caanaha waxaa laga helaa marka loo yaqaano oo kaleeto waxaa laga helaa hilibka lo'da caanaha fadhiga ah saliidda kalluunka waxaa laga helaa marka caanaha loo yaqaano marka riyaha waxaa laga helaa looska waxaa laga helaa marka qudradda cagaaran oo dhan waxaa laga helaa beerka waxaa laga helaa digaaga kalluunka marka waxyaalahaas different sourcekan aan sheegnay oo dhan ayaa laga helaa sida mushroomka oo kaleeto ayaa laga helaa deficiency of vitamin B2 is characterized by haddii vitamin B2 jirka uu ka yaraado haddii uu jirka uu ka yaraado maxaa lagu garan karayaa oo dhacay angular marka stomatitis marka afka markaan eegayna qowlalka inay qofka ay dilaacaan with fissuring waxaa jeexjeexmaya markaa dilaaca at the angles of the mouth marka angaladan ama qowlalkan afka ayaa dilaaca marka ayaa dilaaca chiliosis waxaa kaleeto oo dhaco waxa loo yaqaana red shiny lips inay dibnaha ay aad u casaadaan ee dhalaalaan waxaa kaleeto dhaco waxa loo yaqaana glossitis inflammation ku dhaco marka waxa loo yaqaano caabuq ku dhaco carabka inuu casaado oo barro waxaa kaleeto lagu arkaa scrotal dermatitis waxaa marka dermatitis ayaa lagu arkaa inamadoo kaleeto ayaa lagu arkaa marka in qoriga oo kaleeto maqaarkii uu adkaado oo kaleeto okay marka angular markaan sheegayno marka iyada of the mouth aan sheegayno marka waa halkan inuu qowlalka qofka ay dilaacaan dibnihii oo kaleeto marka iyada inay casaadaan oo ay dhalaalaan carabka oo kale inuu jeexjeexmo oo uu bararo oo casaado waa deficiency of this vitaminka lagu garanay daily requirements qofka maalintii wuxuu u baahan yahay men ragga 1.5 mg ayay u baahan yihiin maalintii ragga womenka waxay u baahan yihiin 1.2 mg pregnancy and lactation dumarka markaa nuujinaya ama uurka la xubaan 2.3 mg by day ayuu baahan childrenka 1.3 mg ayuu u baahan yahay marka fitamiinadan waxaanu leenahay jirka ma kaydsado inta badan waxaa weeye maalin kasta qofka inuu qaato ayaa lagula taliyaa
vitamin B3 waxa uu naqaana marka chemical namekiisa niacin ayaa loo yaqaana chemical namekiisa waxa loo yaqaana vitamin waxa loo yaqaana vitamin B3 niacin ayaa la yiraahdaa wuxuu muhiim u yahay maqaarka iyo neerfaha wuxuu kale oo si gooni ah ayuu uga duwan yahay vitaminada kaleeta in uu hoos u dhigo dufanka dhiiga ku jira oo kale sidaan arki doono ayaa cholesterol nooc loo yaqaan kala hoos u dhiga vitaminka wuxuu kale jirka uu ku yareeyaa cabid waxa ku yareeyaa cabida qamriga dadka qamriga cabo oo kaleeto vitaminkan hoos ayuu u dhiga okay vitamin B3 wuxuu naga caawiyaa releasing energy from carbohydrates fats and proteins dhamaan vitaminada bio dhan waa isku mid in cunada inta mar ay kala soo baxno ayay inaga caawiyaan vitamin B3 waxay muhiim u yihiin in la marka uu jirka uu sameysmo DNA synthesis ayuu aad muhiim ugu yahay it's essential wuxuu muhiim for production la soo marka soo saartaanka la soo saaray estrogen progesterone and testosterone hormoneskaas ayuu qayb lixaad la ka qaata it also helpful wuxuu ka caawiyaa in reducing migraine headache madax xanuunka nooca loo yaqaan migraine-ka ayuu hoos u dhigaa vitamin B3 oo kale wuxuu aad uga caawiyaa oo qofka calaamadihii arthritis-ka qofka marka joints inflammation kale qofka ay symptoms-kii ay dareemayeen oo kale ayuu hoos u dhigaa oo qofkii joints-ka kale inay adkaadaan oo qofka uu kaar yeesho oo uu bararan waxaas oo dhan waxa weeye qofka fadhi vitamin B3 uu qaato uu kaga ladnaa calaamadihii cabashada inay meesha ka baxdo oo kale baahidii uu qofka u qabi lahaa inuu qaato anti-inflammatory medicationski oo qaadan lahaa NSAIDski meesha way ka baxaan marka vitamin waxaan leenahay improves arthritis symptoms calaamadihii symptomska cabashada qofka uu leeyahay sida increasing joint immobility qofka jointiga oo kaleeta inuu dhaqdhaqaajin karayo ayay ka caawiyaan halkii joint rigidity uu dareemi lahaa adkaanshii wixii meesha ka baxaa baahidii uu qaadan lahaa marka anti-inflammatory drugs meesha ka baxaysa haddii qofka high dose of niacin uu qaato medicationska ay used to prevent haddii qofka vitamin B complex uu qaato oo kaleeto dose aad u sareeya waxay ka hortagaysaa meesha arteriosclerosis inuu xididka adkaado ama dufanka uu ku aruro karo wuxuuna yareynayaa recurrent complicationadii soo noqnoqonaya marka ayada sida such as heart attack oo kaleeto qofka inuu wadnihii istaago oo kaleeto ama peripheral vascular disease in those with condition marka xaaladahan ama xididadii oo kaleeto marka ayada marka lugaha oo hoos oo kaleeto caabuqi ku imanaya oo kale uu yareeyaa wuxuu kale inaga caawiyaa detoxify the body inuu jirka ka saaro sunta wuxuu kale inaga caawiyaa inuu jirka sunta u ka saaro vitamin B3 is very essential wax aad muhiim ah for the proper digestion of food in cunada qofka si fiican uu u dheef shiidi karay inuu qofka cunada si fiican uu u dheef shiidi karay ayuu inaga caawiyaa ayuu inaga caawiyaa cunooyinka laga helo vitamin B3 cunooyinka laga helo waxaa kamid marka avocado broccoli-ga marka avocado marka tamaandhada marka xabugti waxa laga helaa wax loo yaqaan marka ayada timirti waxa laga helaa marka ayada qudrada cagaaran noocyada kala duwan waxa laga helaa marka karootadi bataatadi looski spinachki waxa kale oo laga helaa hilibki marka ayada waxa laga helaa beerki waxa laga helaa kalluunki digaagi waxaas oo dhan ayaa laga helaa si kastaba ha ahaatee waxa loo yaqaan vitamin B3 uu jirka ka sameystaa amino acidka loo yaqaan essential amino acidka loo yaqaan tryptophanka oo kaleeta ayuu jirka u bedeshaa vitamin B3 niacin ayuu ka sameystaa marka vitamin B3 ayuu ka sameystaa haddii vitamin B3 uu yaraado oo jirka uu ku yaraado haddaba maxaa dhacaya marka ayada niacin deficiency common waxay aad ugu badan tahay caan ku tahay areaska meelaha where the stable food is made meelaha cunadooda koobaad ay tahay galleyda inta badan ay cunaan maxaa yeelay galleyda marka waxa loo yaqaan maize is low in niacin ku yartay iyo tryptophanka one of the essential amino acids which is precursors of niacin waxaan soo sheegnay tryptophanka waa essential amino acids mid kamid ah taasoo uu jirka u bedesho waxa loo yaqaan vitamin B3 marka earlier signs-ka calaamadaha ugu soo horeeya iyo cabashooyinka marka symptoms of niacin deficiency aan ku arki karno waxa kamid qofka fatigue ayuu leeyahay daal poor appetite qofkii waxa xumaanaya marka iyada cunno xumo ayaa ku dhacaysa rabitaanka ama muhashada cunnada ayaa yaraanaysa weakness qofka awood darro dareemay mild digestive disturbance qofkaasi wuxuu dareemay dheefshiidkiisa oo yaraado ama xumaado
ayuu qofkiisi ayuu dareemayaa. Anxiety qofka waxa soo fotaray walaac ama baqdin. Irritability qofka inuu markaa iyada uu noqdo qof markaa iyada xadagay ama careysan ama inuu qofka uu noqdo. xanuunka ugu caansan vitamin B3 niacin deficiency waxaan u naqaanaa pellagra. qofka waxaa ku yimaada pellagra oo lagu garto maqaarka oo dildilaacsan. waxaan ku garan wax loo yaqaan maqaarka oo dildilaacsan ayaa qofkaasi ayaan ku arkaynaa. wuxuu kaleeto oo uu leeyahay vitamin B3 marka niacin ayaan ku arki karnaa syndrome ayaa inta badan lagu gartaa. marka pellagra wuxuu leeyahay syndrome marka calaamada isu taga. haddii muddo dheer niacin ay jirka ku yaraato prolonged niacin deficiency haddii uu dhaco waxaa lagu gartaa 4D ayaa loo soo gaaray 4Ds taasoo ah qofka waxaan ku garan karnaa oo uu yeelanayo waxa weeye shuban marka diarrhea. waxaan ku garanayaa marka dermatitis qofka wuxuu yeelanayaa waa maxay dermatitis inuu qofka maqaarka uu adkaado oo marka iyada uu madoowaado oo dildilaac u yeesho. dementia ayaan ku garanaynaa qofkii inuu yara asaasiqo marka iyada waxaan ku garanayaa dementia inuu yara asaasiqo qofka. iyo death haddii la daweyn waayo muddo dheer wax laga qaban waayo inuu qofka u dhimasho ku keeno. skin color marka ayagana wuu qalalayaa kadibna wuxuu noqonayaa inuu adkaado iskeli kadibna cracker qofka maqaarka uu dildilaacaya marka intuu madoowaado adkaado ayuu dildilaac uu ku keenaya marka. the conditions aggravated marka xaaladan waxaa sii xumaysa exposure to heat and light. qofka haddii uu marka ayada meel kulul oo kale u baxa ama iftiinka kale way ka sii dartaa. qofka maalintii wuxuu u baahan yahay inuu qaato ragga marka 17 mg oo ah niacin ama vitamin B complex. dumarka waxay u baahan 13 mg. dumarka nuujinayo ama uur kale waxay u baahan yihiin 12 mg. carruurta waxay u baahan yihiin marka iyada wax loo yaqaan 15 mg ayay u baahan yihiin. marka sidaan ognahay fitamiinkan wuxuu jirka haddii ku yaraado waxaa ku yareyn karaya qamriga oo kaleeto. haddii uu qamriga uu jirka ku yareey karo iyadana waxaa dhici karto in fitamiinkan lagu gartaa marka iyada qofka dheeshiidka inuu xumaado kaleeto caajis maqaarkii oo si sahlan ku dildilaaci karaya. qofka dadka qaarkood yalaaluga ayaa yeeshaan oo kaleeto iyo matag. dadka qaarka diiqad iyo niyad jab oo kale kusoo food saaro marka uu jirka uu ku yaraado. marka fitamiinadan saddex fitamiin baan kasoo sheekeynay. waxaan soo sheegnay marka fitamiinkan halka laga wuxuu yahay chemical name-ka loo yaqaano shaqooyinka uu jirka u qabto ilaha laga heli karayo. haddii uu yaraado waxa dhacayo iyo xanuunada dhaco oo kaleeto waxay yihiin iyo maalinta qofka waxa looga baahay. marka vitamin B1 iyo B2 B3 waxaan si gooniya uma jiraan waa vitamin B complex baa laga helaa. waxay aad ugu fara badan yihiin qudradda cagaaran ayaan ka heli karnaa in nagu filan. markaas waxaan kusoo gabagabaynaynaa waxaa la yiraahdaa reer burco waxay yiraahdaan bal yiraahdaa nafar bilaa qashin ah marka ay kala jeedaan marka qudradda cagaaran igada. marka waxaan leenahay qudradda cagaaran hal la cuno waana muhiim marka hooyooyinka uurka leh maadaama ay firtiin iyo kuwa nujinay waa inaad ku dhiirigelisaan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. cashirka xiga intaan ku kulmi doona إن شاء الله وحنا رجعنا مركا غير عشرة هلا إسكا آخرية إن شاء الله في الأسبوع عندي سيبان دقا أين سوق بندونا مركا أنت كله كلمن وحنا سامحين وقتك يا دوبتان كأو نجا قادنا مركا يده وقت دير كدي مركا مربع يربينو إستصادر دنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.